بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أخيارة مستبشرة ليميتد نقول حرن كمبانيجا مستبشرة هي أويل بعدين كل شرحها براكتيكالها قاب كلو استعمالها انتي هوري إلى سعتي عشر كيف هنسيهن انت عصبي انت كلا بس عصبي دين كشرحها مستبشرة هي أويل تنواتي أسبوع إلى مر الاستعمالي أما صدح مر كل بس دو دامج كاوي هاي تنواتي ديلي يوزكا مستبشرة هي أويل محي ترتاع دتك انت بدن كعبانة يا أقولك أما دندرافت timaha daadanaya timaha jajabaya timaha basaaska noqday oo tabarta ay ka dhamaatay timaha salka ka soo go'aya rag iyo dumar way ka siman yihiin iyo dadka bidaarta ka cabaadaya dhowr sano ka hor ama 10 sano ka hor ay ku dhacday bidaarta hadda rag iyo dumar way ka siman yihiin bidaarta inta waagi hore waxa lagu yaqaanay dadka markay age kooda 50 and above ay gaaraan laakiin hadda waxaan la dhilgareynaa dhalinyaro yaryar oo like form 3 ama form 4 wali xitaa aan gaarin jaamacadii oo age kooda 20 to 25 20 to 30 35 adi less than 40 30 dad yaryar oo markaas age kii bidaarta lagu yaqaanayna aan gaarin haddana bidaartii ay hayso koofiyad markasta xidhan la ilxun inay yani timahaas qaabkay ku daaweyn lahaayeen intii aan soo wadnay alxamdulillaah rabbil caalamiin intii ilaahay ku caafiyo waa ku caafiyay inta hadda kadibna baran doontana waadna baran doontaan tan marka qofka hadii bidaartiisa zaaid ay tahay booga madaxa ay ku yaalaan isbuuci laba mar ayuu ka marsanaya qaabku u marsanaya marka practical ahaan baan idin tusaynaa markii uu marsado tan isbuuci laba mar tan waa tii daawadi waad u jeedaan say u culus tahay say u madowdahay ayaa tan laftirkeed ma yareysato tan baa ka culus laakiin iyadana waxay wadataa qaybtii timaha korinaysay qaybtii shininka ka dhigaysay iyo qaybtii timaha ka ilaalinaysay jajabka marka tan ka qabaysato waxaad u baahanaysaa saliid aad marsato saliidihii kale marka hadaad marsato still dhaawici timaha iyo wixii laga calaacalay way jirayaan sayna taas u jirin tan ayaan ku kabnay oo la yiraahdo daily use marka labada calaamad company-ga loogadiisa wataas mustabshira hair oil waad u jeedaan waxay tarayso oo dhan meesha ku qoran tahay marka waxa idin ku soo zoom gareynaya halkaas waxa ku sawran madax xabsuud ah halkaasna waxa ku sawran liin marka tan iyo tan iyo tan way ka siman yihiin laakiin labada calaamad ay ku kala duwan yihiin tan marka waa tii weekly la marsanay kolba sidoo damage kaagu yahay tan waa tii everyday la marsanay qaabkan u marsanayna marka qaabkan u marsanayna way kala duwan tahay tan qaab loo marsadaa jirta tan qaab loo marsadaa jirta marka waxaan idin tusaynaa hadii la haraali ka noqdo practical ahaan ficilkii oo sameynana qaabka loo marsanayo ayaan hadda soo bandhigaynaa insha Allah assalaamu calaykum hadda marka akhyaarta waxaan bilaabaynaa iyadoo practical ah walaalkay oo guriga ila jooga ayaa inoo bilaabaya inoo kala sharaxaya qaabka loo marsanayo hay bilow hadda wuxuu soo qabtay waad u jeedaan waa tii la isbuuci la mar la isticmaalayay oo ay ku sawirnayd xabasuudada marka tan waa mid la isticmaalay tii hore full bay ahayd qaabka loo isticmaalayo bismillah marka madaxa marka oo marinaya ilaa lafahaas skin hoose ay ku jajabinaya waa lagu shubaya marka waa la marinaya iyo waa lagu shubaya waa kala labo hadda marka uu marinaya ay qaybta qadaadka qaybta hore qaybta dhafoorka inta badan salaxyada bidaarta ay ka gasho ragga dumarka inta badan waxay ka gashaa bidaarta eeriyadan dhexe ay ka gashaa raggana waxay ka gashaa qaybahan hore iyo salaxyada iyo qaybaha dhexe dumarka ayaa aad u daran bidaartooda boog ay leedahay inta badan madaxa maadaama markasta garbasaar lagu xirayo ay huurayso ragga laakiin skinka ayaa inta badan waxa laga yaabaa in jeex ay yeeshaan booga yaryar laakiin markasta bidaarta dumarka ayaa daran marka wax aan daawo lahayn ma laha alxamdulillah ilaahay baa cudur kasta keena bidaartana waa nooc cudurrada madaxa ku dhaca kamid ah daawadeedina qofkii ilaahay waafajiyo adoon qaliin aadin adoon timihii soo beeranin adoon chemical isku durin si natural ah dawo organic ah mustabshira hair oil ku soo dhawaada marka haddana mar labaad buu soo qaatay oo ku shubaya qiyaastana wataas waa u jeedin waxa ku xidhan tahay timahaaga qof waxa laga yaabaa inuu bidaar leeyahay oo timaba meesha inuu ku olin saantan buu si fiican u marinaya qofna timuu leeyahay waa inuu si fiican marka ugu xashaa hadda marka qaybta wuxuu ku xashayaa labada gees ee bidaarta ka gasho ama labada salaxyada loo yaqaano labada dhinac qaybtii maskaxda dhakada uu ku shubay hadda qaybtii salaxyadii uu ku shubay hay marka la soo darso
hadda wuxuu ku shubayaa qaybta qadaadka gadaal dhagaha hoostooda ilaa qoorta soo gaarsii. si fiican ay ugu xashaa waa ujeedaan. haye marka la soo qaado haye meelaha aadan gaarsiinin dhagaha hoostooda qadaadka ilaa qoorta meelahaas hoose. marka haddii aad tahay qof caajis qaba markasta jirku xanuunayo jirka dhan baad marin kartaa, dhagaha hoostooda aad marin kartaa, qaybta wejiga aad marin kartaa. haddii aad tahay qof inta badan hindhiso badan oo markasta sensitive ah, faryarta intaad kusoo qaadid ayaad ilaa sanqaroorka aad marsan kartaa. marka wax badan bay daawo u tahay hadda, laakiin waxaan sharaxaynaa qaybta madaxa bas ayaan sharaxaynaa. marka hadda waxaa la joogaa habeen ayaa la joogaa. habeenkii markaa saas u marsatid waad ku seexanaysaa. habeenkii waad ku seexanaysaa, waxaad iska maydhaysaa aroortii. sababtaad habeenka ugu seexanaysidna waxay la falgelaysaa maqaarka hoose ilaa neerfahay la falgelaysaa, waxay ku siinaysaa hurdo macaan. aroortii waxaad soo toosaysaa adoo fresh ah. marka hadda asaan u marsatid lama rabo dhaqsado inaad sariirtaada aadid oo seexatid, sababtoo ah barkintaa kaa cabaysa. markaad 1 saac 2 saac joogto aad hadda timihii waa ii qoyeen, maqaarkii waa ii qoyay, hurdaaba ku qabanba waad seexani. marka barkinta waxaad iska xijini isla tawaalkii markaasaad isticmaalaysay. aroortii markuu ilaahayna gaarsiiyo ayuu iska soo maydhaya, kadibna waxaan u gudbaynaa tea daily useska. asxaabey waan isku soo noqonay mustabshirahe oil sharaxaadii qaybtii labaad ayaan galaynaa oo ah midii liinta ay ku soorneed. hadda wakaas timihii ma uu soo dhaqay, uu iska qalajiyay si fiican. madaxa tawaalka lagu qalajiyo waaye, waad iska qalajin, ma u baahnid qalajiyo oo waxyaalo oo maxaan ku dhahayay machine inaad ku qalajisid. marka hadda wuxuu marsanayaa tea daily use-ka ayuu marsanayaa oo liinta ay ku soorneyd. tea daily use-ka marka waa tanaa liinta ku sooran. wax badana lama rabo, in yaroo qiyaas oo baa la rabaa isaga maadaama timiisa badan yahay oo kasta soo qaatay. qiyaas baa la rabaa. maasha Allah aan u dhaho. marka asxaabta bidaarta wiilka haygaga dhajinina oo idin soo bixi doontaa, idinkana saas oo idin buuxsami doontaa. isaga timaha way ka daadanayeen laakiin hadda timaha way u istaageen. waxaa fiican jirrada intayna kugu dhicin inaad ka gaadhid. Soomaali waxaan naqaanaa markay feerihi xalaan kala dhacaan oo arrintii ay xumaato ayaan dawo raadinaa. marka garhkana waad marin kartaa, caadi baad u marini. looma baahno marka waxyaalo kale oo saliida inaad isticmaasho. inta labada saliid ee mustabshirahe oo aad ka isticmaalaysid, sababtoo waa laba daawo is wadata oon kala maarmaynin. marka timihii wakaas black bay u yihiin, wayna u soo bateen, mana ka daadaataan. asxaabta timaha maran tahay marka idinkana ka walbahaarina. mustabshira si fiican bay idinku soo buuxin doontaa biidnillah baari. waxaan u malaynayaa cashiradii codka aan soo duubayay qaabka loo marsado inaan videogan kaga kaaftami doono oo practical ah. 8 daqiiqo ay noqotay, ka yar baan rabnay, laakiin wixii markii practical ay noqdaan waad ogtihiin cashirku dheeraanaya. khayr baan idin rajaynaa. ilaahay dawaha idinku daro. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.